qof mas'uul ah oo dawladdan ka tirsan oo gabar Soomaaliyeed ku xadgudbay oo si sharci darro ah u xadgudbay shaqadaas ma joogayo horta bal shaqada maalinta xigta waa laga qaadaa kulankan aan gabdhaha Soomaaliyeed ku codsaday inaan la kulmo ee ka shaqeeya hay'adaha dawladda waxa weeye koow inaan bogaadiyo gabdhaha Soomaaliyeed roolka ay ku leeyihiin nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshada dawlad dhiska dhaqaalaha iyo samata bixinta qoyska xoojinta xiriirka gabdhaha Soomaaliyeed ee dawladda hay'adaha dawladda u shaqeeya iyo inaan dhageysto talooyinka wanaagsan ee gabdhaha Soomaaliyeed ujeedooyinka ugu muhiimsan ee kulankan waa intaas wuxuuna ku yimid fartuun baa sheegtay Jawaahirna si gabdhahan way iska adaab badan yihiin si wada adaab la u sheegeen xanna way soo gaadhay waxaan jeclaystay marka information first hand afjooga looma adeegay gabdhaheena in ay ka hadlaan duruufaha haysta ee gaarka ah waxaan rabaa marka koobaad inaan idiin sheego caqabadaha aad ka hadasheen ama aad la xishooteen ee haysta gabar kastoo shaqaale ah waa caqabado universal ah oo dunida oo dhan ka jira meel kastoo la joogo waa caqabado research-yada lagu sameeyo jaamacadaha lagu daraaseeyo waa caqabado debateska meelaha kala duwan ee dunida oo dhan lagu sheego waa caqabado United Nationska miisaaqyadeeda iyo heshiisyadeeda ku diiwaan gashan waa caqabado ay soo jiray oo muddo dheer soo jiray oo dhibaatooyin soo da'weyn ah oo aan hadda cusbayn waxaan marka anigu aan rabaa inaan u soo jeediyo gabdhaha inkasta oo formally ay jiraan guddiga anshaxa ee goobta shaqada wasaaradda shaqada arrimaha bulshadu ay leedahay department oo waxaad ka shaqeeya hawshaas haddana mar kasta oo baawarka loo soo dhawaado waa mar kasta oo shaqadaas la rabo in wax fiican laga qabto waxaan soo dhaweynayaa inaad samaysataan association ay gabdhaha Soomaaliyeed ee hay'adaha dawladda u shaqeeya ay leeyihiin oo u dooda oo xafiiska ra'iisul wasaarahana xafiis laga siiyo oo dadna wax kasta oo dhacay gabar kasta oo mushkilad haysato ay ayaga u timaado gabdhahaas u sheegto annaga ayna soo gaadho anigu waxaan ballan qaadayaa hadday caddaato qof mas'uul ah oo dawladdan ka tirsan oo gabar Soomaaliyeed ku xadgudbay oo si sharci darro ah u xadgudbay shaqadaas ma joogayo horta bal shaqada maalinta xigta waa laga qaadaa kadibna waxaa la marinayaa lala tiigsanayaa sharciga ayaa lala tiigsanayaa laguma daynayo in shanqa laga qaado kaliya maaha in marka ay gabdhuhu si gaar ah ay ayaku isu xanaaneeyaan oo ay isu ilaaliyaan isu protect gareeyaan ayaa loo baahan yahay madaxiina kor u qaada sharaftiina ilaashada karaamaad leedihiin dalkan idinkaa iska leh waxaan rabaa caawa halkan inaan ka sheego waqti dhow haddii ilaahay idhaahdo maalin heblo ma dhihi karo laakiin waqti dhow ilaahay idankiis oon dheerayn gabdha agaasimayaal waa la arkaya haddii ilaahay idhaahdo gabdhaheena sharafta leh ee saraakiisha ah ee amniga inoo sugayana caawa halkan baa ku qortay wixii gaar ah idin haysta ee mushkilad ah ee dhibaatada idinka haysana waa idinkala shaqaynaynaa ilaahay idinkiis idinkana mar kale waxaan ku celinayaa gabdhaheenu aas-aas bay u yihiin dawlad dhiska aas-aas bay u yihiin qoys dhiska aas-aas bay u yihiin dhaqaale dhiska aas-aas bay u yihiin Soomaali dhiska marka
roolkiina soo socdaa haddii ilaahay idhaahdo waxaad ku xaqiijin kartaan wax walba oo inta ay wasiirad Khadiija sheegtay aad ku xaqiijin kartaan oo ah inaad meesha ugu sarreysa dalka aad ka fadhiisataan annaga banoonigii waa idiin soo laadnay hortiinu yaallaa shabaga ku dhufta doorashada gala soo baxa gabdha doorta magaaladan muqdisho ugu horeysay waxaan rajaynayaa gabdhuhu inay maayiro noqdaan gabdhuhu inay commissioners noqdaan gabdhuhu inay councilska ay madax ka noqdaan ayaan rajaynayaa soo baxa gabdhaha aqoonta leh aqoon-yahanada ah ee wax tari kara bulshada idinkana idin tari karana doorta intaas waxaan rajaynayaa ballankeennu waa aniga oo waxa aan qaaday ballankaa ka soo baxa idinka oo associationka samaysta iyo innaga oo wada shaqayn la nimaadna iyo tii aan isku ogeyn oo ah siyaasadda dowladda inaad bays u noqotaan bulshada iyo dowladda isku xirtaan doorashana aadisaan amnigana aad sugtaan